حسن شيخ ومدى الصوماليات إنه وقحن يهي إثيوبيا داعش يا شباب اللي يسوقي حسن شيخ بكعن سبب تانو لا هنا وحوي حسن شيخ قدومياش الدوي بدي ما نملين يا مركا قدومي جامع ياسين إيه قدومي عبد الرزاق خليف أنا بمشي فرديا وزير هره اللي بانو قراتك قناعست هذا إيه دمان عاقلك أن دمان واجد سلامية أن سلامة إسلام كتوقو قالسا بان ذكو سلامية وحانو من أنا هلا ما قاعد بي أما كعدي أما كوركوري سوي مد وحانو رانا يا قدومية يجود هان هير SSC أن وحيلتها هي دنتا SSC خاتمة ودنتا جود يا صومالية من صومالوين بان أورانيا تان أورانيا يوضا وقت وإسكا جابن يهي SSC خاتمة وانوفر يا قدومية وحوي قدومية وحنو ملاينا يا مركي لسمين يي أساس ميسي دبتي أي صومرتي أديقنا دواد أكتهاي دادك ماشا فديانة دمان وأوجيين أحدنا إنا بقرتين باندريمي يا هدي دال يسقبتوه وحي قراء أما الله مغلي أما ودياشا اسمدو مركا وقسر ريه ماشا وحي يلهدين يوم بالغو كلا بحاه waxaa runtii wax laga xumaada maalmahan dambe waxa la isu marinayay media ee lagaga wada hadlayay waa arin qof kasta oo ama Soomaali weynba runtii uu ka naxay gudoomiye waxaan u malaynayaa xeer dejintii adiga jooga adaana u sareeya min fadlag waxa meesha ka dhacayay dhagaha yaga yaanay ku soo laaban sida lagu kala baxo gacmo geel jire qof baa lahaa hoos baa loo dhaqay wixiina hoos u dhaqda hadii la isqabtana de wixii inoo qoraay aynu yaani qoranay ee ismadu qorteen gudoonkii oo inala fadhiyo madaxdiina uu joogay wixii ay yaani meesha inoo qoreen dib ha loogu noqdo isqabqabsiga iyo hadalka iyo miidiyahana min fadlakum naga daaya midna waxaan oranayaa Soomaali weyn sababtaan oranayaana waxa weeyaan de Soomaali weyn kamid baynahado meel kasta oo la isugu yimaado laga hadlayo in dardaaran ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in la islaadaana waa waajib weeyaan marxaladda maanta dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan tahay waa marxalad aad iyo aad u qalafsan run ahaantiina anigu waxaan maqli jiray gabadh baa heerintay waxa weeyaan kulay dumarka qaar eeday noqonayaan oo dacanab xaseeraba waa eedaday inta kalena inaanu ilmaadeer noqono ama wuxuu isu wadanhay baa laga yaabaa marka hayga xishoodeen kelmadan amiin hayga raali ahaadeen kelmadan heerinka aan leeyahay waa un dhaqankii horaan ka hadlaya gabadh heerinto intay meeshii ay joogtay ka tagto meel kale u guur doonato ilaahay ka siiyo de way dhici jirtay dhaqan Soomaaliyeed bahayd soo jireena laakiin noloshayda waa markii ugu horeysay aan runtii arkay dawlad dhan oo heerina dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waa heerin hadii sababay heerin ku tahay oo sababtu tahay badii iyo dhulkii iyo cirkii nooc iyo dawladnimadii Soomaaliyeed hadii sababu hordhiga hadii sababu dhaxdhiga waa wax aad looga xumaado waxaanan qabaa Xasan Sheekh ummadda Soomaaliyeed inuu uga xun yahay Ethiopia Daesh iyo shabaab oo la isu geeyay Xasan Sheekh baa ka xun sababtaan u leeyahayna waxa weeye Xasan Sheekh dalkan wuu burburinaya qurub buu jaraya qabiil buu jaraya laakiin Ethiopia waa laga yaabaa gobol yar oo meel bad ku taalo bay doonaya shabaab iyo Daesh inkastoo aanay u midaysnayn haddana waxay rabaan inay xukumaan
oo ku xukumaan dalka diin aynaan garanayn meel ay ka timi nimankaasi waa xukun doon laakiin balcar idinku garta xasan sheekh wuxuu doonayo waxaan ku soo gabagabeynayaa min fadlakum dardaaranku wuxuu u socday uun gudoomiyaha waxaan u maleynayaa reer SSCna madaxdeeda xamar baa lagu xagmanaya baryahan dambe ha u qaadanina inaan idinka idiin jeedo laakiin waa samata bixin ummadda Soomaaliyeed kollay sharar baa ka socda meesha qodobaana dhaqso uga soo baxaya marka inay Soomaali wanaageeda jiritaankeeda iyo muxuu ahaa dawladnimadeeda in la isu raadiyo dib la isugu raadiyo yuun baa shirkaasina ku salaysan yahay